الله وين ربي بوحداد وذا تغنيني magacyada ilaahay waxaanu ka bilaabi doonaa magaca allah waxaan halkan ku qaban doonaa casharo aan u bixinayno taxanaha magacyada ilaahay ee 99 ah waxaan ka hadli doonaa magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ah al-malik oo ah waa allaha boqora ee boqornimada leh ee qofku rabo boqor ka dhiga qofku rabana boqornimada ka cisho qofka noqonaya hogaamiye raba inuu ummad hogaamiye u noqdo marka koowaad waa inuu anshaxiisa wanaagsan yahay marka labaadna waa inuu rabitaankiisa wanaagsan yahay oo ay ka dhalanayso marka hogaamiyahaas inuu awood u yeesho fikradda maskaxdiisa ku jirta inuu u bedelo wax nolosha dadka saameynayo waxaana ka hadli doonaa laba magac oo isku dhow oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu leeyahay oo aan rabno inaan hal cashir ka wada dhigno waa magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala ee ah ar-razaaq oo ah quudiye iyo magaca kale ee al-muqiit ee ah Allah subxaanahu wa tacaala inuu yahay quud qaybiye waxa aad loo wada og yahay in uurka bini aadamka waxa ku jira si uu u soo saaro inuu u baahan yahay hadalkaas sida uu u soo baxana wuxuu u baahan yahay erayadaasuna ay isku bedelaan oraah isla socota oo faa'iido la maqlo lana weeleen karo ay ka dhalan karto si aad ugu hadasho erayo isu bedelaya oraah waxaad u baahan tahay waxa taqaano oo aad ku hadasho waxaa kaloo jira dhulka laftigiisa meelo muqadas ah udkhulu al-ard al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum oo ilaahay uu sharfay oo ilaahay wax walba uu ka ilaaliyo waxa kamid ah Makka in qofku waxa la yiri uu go'aansado inuusan ka argudanin laakiin uu sheego qofkaas waa qof ku cafiyay yani dib ba qofkan ku geystay waxaad leedahay ninkan waa iska cafiyay mana ka argudan doono go'aankaas aad gaaraysaa laakiin go'aankii waad sheegaysaa waxaad oranaysaa wallahi ninkan waabu dhibaato ii geystay oo saas hadda ka hor yeelay oo laakiin waa iska cafiyay ka marka cafis baa la dhahaa laakiin culimadu waxay yiraahdeen dulqaad waxa la yiraahdaa inaad go'aansato qofkii ku xumeeyay in aadan ka argudanin marka hore go'aankaas inaad gaarto marka labaadna aad go'aan ku gaarto qofkaasi inaadan tusinin xataa inuu bari ku xumeeyay ama maalin uu dhibaato ku geystay oo aad ula dhaqanto si wanaagsan idfac billati hiya ahsan sheekooyinka la yaqaan waxa kamid ah ereyga la yiraahdo qorsheyn af Soomaaliga in mar dhow lagu soo daray oo wasaaradii u horeysay oo qorsheynta oo dawladda Soomaaliyeed ay sameysay lagu soo daray waxa arintaas si public uga sheekeeyay dadka Soomaalida u sharxay madaxweynihii maamulka Soomaaliland Axmed Silaani oo yiri ereyga aniga afka Soomaaliga ku soo daray الله وين ربي بوحداد وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبك ما غرسون قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مقا عيسو ووارثان دمانا